sheekhana xalay iga sheekeynayay dee sida ay tahayna waa dad waxyaabo badan iska matala haddii ay tahay kaftanka haddii ay tahay fududaanta dee marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan anigoo reer burca aan la kulmo baydhabo kismaayo muqdisho garoowe ugu dambaynna ay halkan ila soo istaagto inan ka soo jeeda meesha la yidhaahdo gaalkacyo aad baan idin salaamayaa anoo naag reer muduga ah aad baan ugu faraxsanahay inaan dhulka ka dhashay 2 xinayood baan ku joogaa laamiga noo xiran waa sida hal sheekan sheegaya adna waa inaa hal sheeka sheegto oo ka qoslaysa dadka oo reer burca ani midda waxaan sheegayaa reer gaalkacyoodka lagu dacaayaday ama fani ha u ahaado ama ku qosasheen muhiimaddu waa cuntayseen waa inaad qosol dhac aad iyo aad wiil yar baa waxa la yidhi wuxuu u duceeyey hooyadiis ilaahu rabbiyo hooyadii u naxariiso oo jannadii gee oo saas samee saali war aabbahaane aabbaha jiljilec kuma ogeen buu yidhi oo haddaan u duceeyo ceebba bay igu tahay aabba umahadsan iyadu waxay ka sheekaysay sheeko qosola se laakiin waxaan u malaynayaa haddaan anigu mid ka sheekeeyo iskabadda inaan sheeko badan ka sheekeeyo haddaan laba layn ama 2 sadar aan isku dayo inaan sheekada ku xasuusiyo waxaa laga yaabaa inaad ku qosashaan reer xamarka ayaa kelmadda la yidhaahdo jug waxay u yaqaanaan durug marka malaa mid reer xamara ayaa wuxuu yimi xagga burco iyo hargeysa dabeetana bas buu soo fulay markuu soo fulay mid reer waqooyi ku yidhi war jugdhe almacnaa durug muxuu yidhi jug haddana waxaan siri malax baa khaldama haddana wuxuu ku yidhi waraadhe jugdhe musiis waa malax ku muuqda muxuu yidhi jug marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin soo hor istaago dee nacas baan nastaa aad baad mahadsantihiin